صليت حبيقا نفتضى شعير وقيرو وركيو قلبي جاني اسمه حبوب سوقا بيلسي برنامج عام محاد ويسا واحد نوشك سينات قصة وهيسو قصة ما قصة جعيلة مسوا قصة كلا قصة جعيلك أديga waa marka hore waxay ahayd wiilka adiga xaflad ayaa isku baranay xafladii marka aan isku baranay adiga wiilkii lambarka ayuu iga qortay wiilkina ileen wuxuu ahaa wiilasha kaabadaadarkooda ayuu ahaa lambarkayga markuu iga qortay waan baxay guriga ayaan tagay message ayaan ka wada hadlaynay markii dambe si fiican jaceelka ayaa ugu wada dheeraanay marka dadaa waxay idhaheen wiilkaas aala socotid ma ogtaa horta naag ayuu qabaa markaasaan dhahay aniga bini aadan hadalkiisa ma qaadanayo ee waxaan qaadanayaa hadalkiisa saas miyay marka iskoolkii ayaa iskoolka markaa iskugu imaanay waxaan dhahay adiga gabar ayaa qabtaa leeyahay dhahay marumba suudaa abaayo aniga gabar ma qabi ka waran hadii aan ku dhaho gabar qaba macnaha miyu soo raac leed mise waa iga tagi leed markaasaan dhahay hadda meel aan ka noqdo ma joogi runta ii sheeg aniga zaid ayaa ku jecelahay runta ii sheeg suuxuda aniga hadda gabar ma qabi laakiin hadii aan ku dhaho gabar ayaa qaba miiga leexanaysa mise waa igu soo soconaysa ka soo qaadan dhahay anoo ku jecel aanan ka maarmin oo dhanna aan kaaga leexan karin سوقات سوعدا أدينا ناك مقالي هيا وايهن وان كتغي غورينا آدي والدكيغا marka adiga waa idareemi waayeen joogayga ifahmi waayeen markay ifahmi waayeen markaas waxay dheen gabar saaxiibtay gurigaygu imaanaysa xitaa firdowsooy adiga ayaantan kuma aanan bogin jaceyl miya ku galay saaxiib jaceyl wuxuu ii gali waayay adduunyada dhanba jaceyl ayaa lagu nool yahay wuxuu ii gali waayay qaybsanee wanaagayno qorshe waxay tiri yaa jeceshahay qofkii asiga ahaa ayaa jecelahay marka ana dhahayo qofkii asaga ahaa ayaa jecelahay qofka asiga jaceelkiisa ma ku soo jeediyaa uu ii soo jeeda ma aniga waxaan iska hubin maba galaan dhahay wiilka waan jecelahay asagana wuu jecel yahay saas hay waa wiilka ka waran hada maalin guriga noogu keentay noogu casuuntay gurigeena bartid gurigiyaan keenay adiga waalidka ayaan baray hooyo ayaan baray dadkoo dhan aan baray adiga bas wiilkii markaas iskugu dheeraanay adiga wiilkii markaas iskugu dheeraaniya waxa maqlay in muddo kadib aan waxa maqlay anoo oo xanuunsaday oo guriga imaaday fartoos waxa kugu dhacay waa xanuunsanaya adiga zaida oo xanuunsanaya ha saasmiya jaceelkiisa marka la xanuunsanaa aad buu ii galay marka adiga dhinacyada dhan meeshii aan fiiriyaba asaga ayaa joogay koobka biyaha daacay asaga ayaa ka dhex muuqday raashinka sidoo kale meel walba hadii aan joogo asaga ayaa fiirsanayay naftu muhado marmi weydo usanawdo kudulmete isaga mkuuga marka inaad xanuunsantahay isagana aad xanuunsantahay mkuuga maya asaga ima ogeyn laakiin waa loo sheegay oo ii imaaday markuu ii imaaday adiga wuxuu ugu dhaafay Firdowsa si lagu waayo baay macaanto markaas aan dhaabo xoogaa waa iska jirana marka aniga ilaa hadda ma dhihin waa ku jecelahay jaceelkan waa ka qarsanayay isaga si bandhig ahaan wuu igu sheegtay waa ku jecelahay ayuu igu dhahay markaas aan dhahay mi jeceshaha hay waa kulli waa ka wada tashanayna anigana ilaan gabar oo walaab lagu ogaayay xishoodkee waxaan dhahay يا كل وقت فكرايا إن مدامك أدرس الله أمسنا أسقي ما ذي حنونك يوحيدنا أوش الشيء أبحي مركو إجتي أدي دور بري عمل كتب أنا حوجا والد تادي وأبحي والي صوب حفلة أيات فرتالي هاي صباح حفلة دي أنتجي مركي أنتجي وحالي ده صاحب كلام عياري 600 أنا أيامها بوا أن حنون سنة هذا نمدي لكري لكن حلاقي وهدو أسق أوي ماذو إن عياره على جيابه wiilka zaid ayaa u jeclaatay maxaa u jeclaawaa nafteeda waan ka jeclahay saas miya u jeclaatay wiilna qabo waaybe asaga u taalayaan haduna qabay hadii kalkule aniga sidis ayaa ku jeclahay wiilka aniga dulmigeena maba u baahni geesiga mar xafladii anoo ka soo xanaaqi oo banaanka soo fadhiisto imaad Firdowsa waxa kugu dhacay abaay markaas aad waxbay ugu madcin adiga buuqa ayaan u soo adkeysan waayay saas ayaan
banaanka u imaaday saas miyaday saasta in keen banaanadaas aadayna xoogaa waa soo wada sheekaysanayna waan baxay markaas wuxuu ugu dhaafay Firdowsooy aniga in muddo waxaan isku dayay inaan ka qariyo inaan naaqabo laakiin hadii aan ku dhaho naaga qaba maxaa ka dhihilayd waxaan ka dhihi lahaa haddii naaqabtid xilli aan soo noqdo maba joogiye kulli maxaa iiga qariso halaan dhan aan ku jeclaaday maxaa iiga qarisay aan ku dhihi lahaa abaayo aniga hadda naaga qaba naagteedana mar dhow inay soo socotaan u maleynaya aniga meeshiyaaba naxdin gooraan kacay goor kalan kala garan waayo gurigeeni goortan tagan garan waay adiga dhowr beri dhan waa aan ka aamusay markii aan ka aamusay wuu isoo wacay markaas uu Firdowsooy ayaanta hadalkaaga uma aanan bogin waxa kugu dhacay saaxiibo waan dhahay qofkii aad dugaashanay ayaa daban ii dhigayaan dugaashtaa mise darbaan dugaashtaa mise dugaaga dugaashtaa wuxuu dhahay maxaa ka wada hadalaas intaas oo dhan maxaa ula jeedaan mayaan dhahay halaha qiyaamo ah igu sameysay ayaa igu filan waad qiyaantay laakiin inkastoo aanan ka soo noqon karin qiyaamada oo niideedan aan ka jeclahay kulay saa u ilaawo way ugu adag tahay jaceelkaaga saas miyahay wuxuu dhahay aniga gabadhaas ma jecli haddaad jeclaan lahayn maada guursan lahayn aan dhahay aniga beenta iga dhaaf suxuuri naag run ayaan been ayay ku soo xiragashay run ayay ku dhaqantay anigana waxa isdhahay hadda koodi hor fakti hor asbaran lahayn aan ku dhihi lahaa naag ayaa qaba inaad isu raaceenin laba calis ma weydiinayso abaayoy maxaa ka leedahay arintan oo adiga aan maanta ku soo bandhigtay waxba kama lahaan leen aniga maadaama aan zaid ku jeclaa waxaan ka dhihi karaa meesha ma joogaan seel in xiisa raagay qofkii baday soo ma baahna bukaan kalgacayl bastiya cidii baday soo ma baahna aqyaar kala baadiyowday baryadada soo ma doonto bartuu kalgacayl fariistay hadduu boholyow ku raago jacaylkaaga hantay horjoogaaga farxada anigu waan kaa helaa hubaal waan kula hayaa hamiga waan kugu hayaa ihano oo hoy igey gurigooda ayaan tagay maanta marka gabdhaha walaalihiisa aad iskugu dheernaya saaxiibanahay gabdhihii aan u tagay buug jecel oo aan soo qaatay oo macnaha buugaan saxriir jecel sunma loo cabaabaan iska akhrisanay mar walba niyad iiga soo dhadhacay buugaan oo akhrisanay wuxuu dhan qofta iid ahayd ayaamaan maxaa ku dhacay ma wada socotiina dhalinyarta soo dhaheen soo socday buu ii imaaday wuu isoo waday anoo ka xanaaqsan oo mana dareesinin inaan xanaaqsanahay waan u imaaday waa isa soo raacnay xafladda haddana waaba tagnay xaflad kala aasinay markaa aasinay haddana adiga wiilasha xidheen waaw maanta saaxiibta ayaa kula socotay idinka soo imeena dheenin saaxiibta ma ku soo raacayso waa isdagaalsantihiin maya waa kana kuma aanan dhihin saaxiibta inay ku jeceshahay la ilaahay hadda noo sheegaysa ka waran hadday naagtaada ku ogaato naagteeda aniga ilaahay afar ii baneeyay naagteeda maxay iga dhihi kartaa maxaysan sheegaysaan bas adiga wixii meesha saas la ahaada naagtii yaa imaaday naagtii aniga oo quursaday oo adiga isdhahay niida oo isdhahay wiilkan meel wax laga qabto ma joogtide waxaan dhahay aboo maanta waa jimce ka waran haddii oo macnaha damaashaadka meelaha aan iska aadno ka waran maxaa ka leedahay suu yiri damaashaadka waxba kama liya waa israacayna suu waa soo labisanaya labiskii anoo ku og ilaan jaawab iiga booday wuxuu aaday gabadh uu qabay oo gaariga ka soo wadaayay xaafad ayuu keenayay gabadhii ayuu doonay gabadha markuu doonay adiga waxaa lii dhahay aawi saaxiibkaagii uu baxay naagtiis ayuu doontay aan dhahay macquul maba noqonaysa aniga isaga ballan ayaa leen muxuu iigu galayaan nafsiga ka galay muxuu yahay wiilkan aniga waan baxay u sheeg maxaa fariin u dhaafilad fariina taa uma dhaafeeyay waa baxay gurigeena ayaa aaday saas ugu sheeg markaas aniga guriga maba aadinay waxaan aaday marka waxaan xaqiijinay marka inuu naagta doonay in kale ayaa xaqiijinay xaafadaha saaxiibteeda
aan meel ka galay bas adiga waxaan arkay haddana ayagoo isla socdaan oo gabadhii boorsadii u soo wada arkay mir markaas meeshuba iigu dambeeyba waa xoogaa waaba isku naxayba qudhaydani qudhaada jecel siday ugu qanacsan tahay xurmiya adiguna qadiri qofnimo ugu sii qudhaydani qudhaada jecel siday ugu qanacsan tahay xurmiya adiguna qadiri qofnimo ugu sii hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh